musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo ah madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ayaa booqday qaar ka mid ah dadkii dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxii Muqdisho ka dhacay sida warkan uu ku soo diray wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud. inkastoo maalinnimadii shalay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ay dad badan ay ku dhaawacmeen ayaa qaarkii dadka dhaawacmay waxa la keenay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. mas'uuliyiinta isbitaalka waxay noo sheegeen in qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ay noqdeen kuwa caafimaad qaba isla markaana dib loogu laabay xarumahoodii iyo goobihii ay ka yimaadeen. intii aan ku sugnaa gudaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada kuwa oo booqanaya isbitaalka iyo dhaawacyada yaalay. waxaana ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana warbaahinta uu kula hadlay gudaha isbitaalka. marka inta dhaawacana Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafiyo cidii ma taqaana jecel inay khayr ka qayb qaadatana waxaan dhihilayn isbitaalada sidan oo kale ah caawiya oo gacan siiya si qof wax ku dhacayaan lama yaqaan qof walba oo ma taqaana hadhow adeega u baahnay marka u baahan yahay oo ka helo intaas markaan ka gudbo aadan uga xumahay dad Soomaaliyeed inay maanta ku howlan yihiin inay dad aan waxba galabsan oo guryahooda hurdo ay dhibaateeyaan oo ma taqaana dhimasho iyo dhaawac hotelka laftigiisa waa tagnay waxaan ku soo aragnay burbur weyn يعني hanti badana meesha ku burburtay dad badana ma taqaana dad badan oo deganaya meesha hoogoodii la baabiyay marka waxaan leeyahay dhalinyarada la marin habaabiyay ha ku mashquulin inaad wax dishid inaad wax burburisid ku mashquulin inaad wax dhistid waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo ciidamada amniga dadaalka ay wadaan duruufta adag ay ku shaqeynayaan waxaan u rajaynayaa inay ku guuleystaan mas'uuliyadda maanta laga filayo oo loo xil saaray runtiina shacabka Soomaaliyeed maanta qiimeyn iyo qadarin u hayaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa badbaadinta naftooda iyo noloshooda marka waxaan idin rajaynaa ciidamada qalabka sida meel joogaan baguulan idin rajaynaa foojignaantiina badiya marxalad adag lagu jiraa marxaladna waa marxalad dhagar qabayaashu ay badiyaan dhibaatooyinka ay la damacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo cidda u adeegaysa Ilaahay idinku guuleeyo mas'uuliyadiina adinkana waa mahadsantiin. sidoo kale agaasimaha guud ee isbitaal Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa goobta waxa uu kula hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyay xaaladda dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. marka annaga shalay dhaawacyadaanaytood wixii aan u qaban karno waa u qabanay qaar markii aan daaweyno la sameeyay meelo kale loo qaaday qaar intensive care iyo mashiino kale u baahnay oo isbitaalka aan aalin laakiin badidooda waa noo joogaan waajifna qaybaha kale joogaan. qaraxii shalay ka dhacay hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimashada in ka badan 10 ruux iyo dhaawaca ku dhawaad 40 ruux sida ay sheegtay wasaaradda amniga qaranka ee dawladda oo ka dhacay ka oo iminkaba u muuqata inay gaadiidka kala duwan ay isticmaalayaan maadaama la furay halka oo maalintii shalay loo xiray qaraxii ka dhacay magaalada tan Muqdisho. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, gudaha isbitaal Madiina Muqdisho.